وبركاته وأنا قوس حرديد SMS أو إدين سو قد بيني يا مانسانا متكاملة عشرة ديني الهرو وقتها ونشرتين يوتيوب كا عشر كين المانتا أو لسه عدا عشر كيني هوريا فريسو دونات waxaan ku soo qaadan doonaa erayo kooban oo aynu kaga hadli doono sida uu qofku u fahmi lahaa Soomaaliya gishishte ama waxa loo yaqaano taariikhda Soomaaliya si uu qofku haddaba u akhriyo Google-ka waxaa muhiim ah inuu garanayo qofku erayada ku jira oo eray kastana uu ku fahmi karo af Soomaali haddaba cashirkeena maanta inaga oo kasii anbaqaadi doono halkii uu inoo taagnaa cashirkeenii hore ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa isagana isla markaa erayo kooban oo aad iyo aad u muhiim ah haddaba cashirkeen waxaa idiin soo gudbinaya dhammaanba asxaabta TV-ga Somali German Connection oo uga barateen inay idiin soo gudbiyaan cashiro habaysan cashirkeena maanta haddii aan halkan kasii anbaqaado kelmadda ugu horeysa ee koowaad macnaheedu waxa uu noqonayaa Fremdsprache waxaa la odhanayaa waxa Ingiriisiga lagu yidhaahdo foreign language ama luqad ajaanib ayay noqonaysaa af Soomaaliga Fremd kaligeed waxay noqonaysaa waa foreign Sprachena waxay noqonaysaa language marka Fremdsprache haddii la israaciyo maxay noqonaysaa foreign language oo ah luqad ajaanib haddii jamac laga dhigo n baa xagga dambe lagaga darayaa oo waxay noqonaysaa Fremdsprachen ama Fremdsprachen waxay noqonaysaa foreign language oo noqonaysa luqado ajaanib number 2 Amtssprache waxa weeye waa official language waa luqad rasmiga weeye marka la leeyahay kelmadda amt had iyo jeer waa xafiiska sida Bundesamt xafiiska Bundeska marka Bundesamt oo kale amt had iyo jeer waxa weeye ama social amt waxa weeye amt waxay noqonaysaa waa xafiis marka la leeyahay Amtssprache waa luqadda xafiisyada wax lagu qoro ee rasmiga weeye ee dowladdu ay u isticmaasho inay ku gudbiso waraaqaha iyo isla markaasi dokumentiyada marka Soomaaliya oo kale luqadda rasmiga ah waxa weeye Soomaali marka Amtssprache waxay noqonaysaa marka official language waa luqadda rasmiga ayay noqonaysaa number 3 Regierungschef waxay noqonaysaa Ingiriisiga head of government waa madaxa dowladda marka Soomaaliya oo kale marka la eego madaxa dowladdu wuxuu noqonayaa madaxweynaha macnaha waa cidda ugu sarreysa ee had iyo jeer maamusha waddanka matalan Jarmalka oo kale waxaa u sarreeya ra'iisul wasaare marka Regierung waa dowladda chefna waxa weeye waa chef oo madaxa weeye marka la israaciyo Regierungschef waxay noqonaysaa head of government Regierung waa dowladdii waa government Regierungschefna waxay noqonaysaa markaasi head of government oo ah madaxa dowladda number 4 Staatsform waxa weeye waa qaabka dowladdu ay u samaysan tahay haddii ay tahay dowlad baarlamaan ah marka had iyo jeerba dowladuhu waxay u samaysan yihiin qaab ugu sarreeyo madaxweyne iyo qaab ugu sarreeyo ra'iisul wasaare marka had iyo jeer qaabka ugu samaysan tahay baa la odhanayaa Staatsform waa qaabka dowladdu ay u samaysan tahay number 5 Unabhängig marka hore waxaan ku soo sheegnay aan ku tiirsanayn oo ka madax bannaan bay ahayd Unabhängigkeit haddii la israaciyo kite waxay noqonaysaa haddii la raaciyo nomen bay noqonaysaa Unabhängigkeit marka waxay noqonaysaa independence ama waxay noqonaysaa xornimo haddii aynu kelmaddaasi aynu tag xagga dambe kaga sii darno had iyo jeer Jarmalku waxa weeye macadka oo kelmadii taqaano baa kelmad kale lagu daraya marka waxaa kasoo baxaya macno cusub haddii aynu raacino Unabhängigkeit haddaynu tag xagga dambe kaga sii darno waxay noqonaysaa Independence Day oo noqonaysaa maalinta xornimada Unabhängigkeitstag marka had iyo jeer qofku uu kala qaadi karaa Unabhängig iyo Kite iyo Tag Unabhängigkeitstag
waxay noqonaysaa markaasi Independence Day ama maalinta xornimada. Number 7 ehemaligen waxay noqonaysaa former ama waa hore, former state oo kale haddii la leeyahay ehemaligen staaten. marka former waxay noqonaysaa ingiriisiga waa former bay noqonaysaa, soomaaligana waxay noqonaysaa hore. Number 8 haddii aan soo qaato internationale anerkennung waxay noqonaysaa international recognition ama waa aqoonsi caalamiya. Internationale anerkennung marka waxay noqonaysaa ingiriisiga international recognition ama waa aqoonsi caalamiya. marka had iyo jeer anerkennung keligeed waxay noqonaysaa waa aqoonsi. oo imika haddii la yidhaahdo Vaterschaft anerkennung waxay noqonaysaa aqoonsiga aabaha lagu aqoonsanayo. marka uu leeyahay qofku aniga ayaa u aaba ah carruurtaas, waxaa laga rabaa warqad loo yaqaano Vaterschaft anerkennung oo ah aqoonsiga aabaha. marka had iyo jeer anerkennung waxay noqonaysaa aqoonsigii bay noqonaysaa. haddii xagga dambe laga soo raaciyo internationale anerkennung waxay noqonaysaa international recognition oo aqoonsi caalami ayay noqonaysaa. Number 9 eigenständige Nation waxay noqonaysaa independent nation oo ah qaran madax bannaan ama dowlad madax bannaan ama ummad madax bannaan intaba. Number 10 Teilstaaten marka had iyo jeer tile waxa weeye qayb weeye, staatenna waxa weeye waa dowladii weeye. marka dowlado ingiriisiga waxay noqonaysaa substates, waa dowlado si kala qaybsamay ama ismaamulo ama gobollo states ismaamulo iyo gooni isku maamula ayay noqonaysaa Teilstaaten. Number 11 waxay noqonaysaa verwalten macnaheedu waxa weeye manage, inaad wax maamushid. haddii kelmadda aanu ka dhigno Norman waxay noqonaysaa verwaltung oo noqonaysa maamulka laftiisii oo waa Norman verwaltung. haddii jeer haddii ay weyana iyo gadaasi marka ugu dambayso haddii jeer waa Norman kelmaddu verwaltung oo maamul bay noqonaysaa. matalan haddii la yidhaahdo Verwaltungsgerichte maxkamadda maamulka ayay noqonaysaa. Number 13 selbstverwaltete Teilstaaten waxa weeye self-governing substates, waa dowlado yaryar oo iyagu ismaamula ama ismaamulo yaryar oo iyagu had iyo jeer ismaamula oo gooni isku maamula. Selbst iyo verwaltete haddii la israaciyo selbstverwaltete bay noqonaysaa ismaamulo weeye. Teilstaaten waxa weeye dowlado yaryar ama gobollo ama ismaamulo iyagu had iyo jeer ismaamulo ayay noqonaysaa. Number 15 gemeinsamen somalischen Staaten waxay noqonaysaa dhammaan dowladaha Soomaalida amaba staaten marka la leeyahay dhammaan ismaamulada Soomaalida ama gobollada goonida isku maamula ee Soomaaliya. Gemeinsamen somalischen Staaten dhammaan dowladaha Soomaalida. Number 16 aufgeben haddii laga dhigo participle ama waxtagi laga dhigana aufgegeben resign bay noqonaysaa ama iscasilid. Number 17 in Kraft treten waxay noqonaysaa come into force, awood yeeshay ayay noqonaysaa. in Kraft keligeed waxa weeye waa force, treten marka lagu daro in Kraft treten waxay noqonaysaa come into force, awood yeeshay. Number 18 Verfassung waxay noqonaysaa constitution, waa dastuurka weeye. Verfassung macnaheedu waxa weeye constitution ingiriisiga, soomaaligana waxay noqonaysaa dastuur. Number 19 das Mitglied waxa weeye waa xubin, haddii jamac laga dhigana waxay noqonaysaa die Mitglieder oo noqonaysaa members ama xubno. Number 20 waxa weeye gegen oo ingiriisi noqonaysa against, kasoo horjeeda ama lagaga soo horjeedo against. Number 22 Strukturen waxay noqonaysaa ingiriisiga structure, waa qaabka uu wuxuu samaysan yahay ama ay dowladu samaysan tahay ama shay kale uu samaysan yahay, waa wax la odhanayaa
Strukturen. Marka Strukturen ingiriisigana waxay noqonaysaa structure oo waa qaabkii weeye. Number 23 beauftragen. Beauftragen waxa weeye ask to do ama tell to do, inaad qof wax u sheegtid inuu waxaa sameeyo oo tiraahdo waxaa samee, inaad u sheegtid qof inuu waxaa sameeyo uu kusoo sameeyo hawsha uu kusoo qabto. Marka beauftragen waxa weeye ask to do ama tell to do, inaad qofka u sheegtid inuu waxaa sameeyo. Number 24 dus waxa weeye number 24 die zunehmend waxa weeye ama zunehmend increasingly waxa weeye soo kordhaya oo soo taraya weeye zunehmend. Number 25 waxa weeye locale clans marka waxa weeye qabaa'ilo maxalliya. marka local waa iska garanaysa waxa weeye maxalligii weeye gudihii waxa weeye waxa dalka gudihiisii markaasi ka jira. Locale clans waa qabaa'ilo maxalliya af Soomaaliga. Number 26 piraten waxa weeye waa burcadbadeedii. Number 27 waxa weeye internationalen Staatengemeinschaft waxa weeye international community waa bulshada caalamka weeye. Internationalen Staatengemeinschaft international community waa bulshada caalamka. marka had iyo jeer Jarmalku ereyada wuu isku dardaraa sidaan hore u sheegnay, sida Staaten iyo Gemeinschaft oo kale waa kelmad la isku daray. haddii aan ku celiyo number 27 internationalen Staatengemeinschaft waxa ingiriiska ay noqonaysaa international community ama bulshada caalamka. 28 haddii aynu soo qaadano waxay noqonaysaa Vereinigungna waxay noqonaysaa waxa weeye union ama waa ururka, oo waxay la macno tahay Zusammenschluss oo iyaduna macnaheedu noqonayo urur ama koox. Vereinigung union af Soomaaligana waxay ku noqonaysaa ururka. Casharkeennii maanta waxaynu ku soo qaadanay ereyadaas kooban. waxaan ku soo gabagabaynaynaa casharkeennii maanta amaba aan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaynu ku kulmi doono cashar midkan oo kale ah, dhammaantayaba waxaan idin leenahay sidaas iyo ammaano Allah iyo isku soo noqosho dambe iyo casharkeen labaad intaynu ka kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.